السلام عليكم ولكن تيسير caruurtu qalbiyadooda waa nadiif laakiin dharkooda ayaa wasakh ah. Dadka waaweyn dharkooda ayaa nadiif ah balse qalbiyadooda ayaa wasakh ah. Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala u naxariisto mooyee. Shimbirgeed dul fadhiya marnaba kama cabsado in laanta ay saaran tahay la jabto, sababtoo ah kalsoonidu ma aha laanta balse waa baalasheeda. had iyo jeer ku kalsoonaa nafsadaada. qorax dhaca halkan waxay qorax soo bax u tahay dhinac kale oo dunida ka mid ah. xaquusan sababtoo ah wax u muuqda dhammaad ayaa xaqiiqdii ah bilow cusub. muhiim maaha inaad ka xanaaqdo wax dhabarkaaga laga yiri, waayo ka oran maayaan hortaada. ha ku dadaalin inaad dhisato guri weyn oo aad ku noolaato, laakiin ku dadaal inaad dhisato guri aad ku noolaato oo xasiloon oo ay ka dhex iftiimayso akhlaaq wanaagsan iyo alla ka cabsi. awood uma lihid inaad beddesho muuqaalkaaga, laakiin waxaad awood u leedahay inaad beddesho dhaqankaaga si aad u noqoto kan dadka ugu akhlaaqda wanaagsan. dadka ugu akhlaaqda wanaagsan noloshu waxay macno badan yeelataa markii aad garowsato xaqiiqda fudud ee ah in fursad isku mid ah aysan laba jeer ku soo marin. ka faa'iideyso fursad kasta. tartan u dhaxeeya libaax iyo deero marar badan waxaa guuleystay deerada, sababtoo ah libaaxa wuxuu u ordayay oo kaliya cunto, deeraduna waxay u ordaysay nolol. xasuuso ujeedada hadaf ayaa aad uga muhiimsan baahida. ha noqon qof cunto kaliya u orda. ha isku mashquulin, hana ka fikirin gefkii shalayto, waayo beri waa fursad kale oo aad ku sixi kartid intii shalay qabyada ka ahayd.